kulanti wacan daawadayaal meel walba oo daafaha adduunyada aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij kooban oo maanta aanu kaga hadlayno cudurkan coronavirus COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida guud ahaan gaar ahaan dalka Mareykanka. cudurkan dilaaga ee COVID-19 ayaa hareeyay dunida wuxuuna saameeyay gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa iyo nolosha bani aadamka guud ahaan. dadkii ayaa kala iroobay, shuruuc badan ayaa la bedelay, albaabo badan oo ganacsina waa la awday. dowladaha qaniga ah ayaa la daalaadhacaya sidii ay suuqaqooda dhaqaalaha uga baxnaanin lahaayeen musiibadan. dowladda Mareykanka ayaa ansixisay $2 trilyan oo ay siinayso muwaadiniinta Mareykanka iyo ganacsatadooda yaryar si ay ugu adeegtaan dhaqaalahuna uusan u baabi'in. qarashkan iyo dadaalkan badbaadada ayay dowladda Mareykanka uga gol leedahay sidii looga cayman lahaa musiibada dhaqaale ee ka dhalatay cudurkan coronavirus. lacagta ay qaataan dadka shaqadu ay ka joogsatay ee loo yaqaano unemployment benefits ayaa la kordhiyey, meesha si toos ah guriga loogu dirayo $1,200 oo degdeg ah muwaadiniinta Mareykanka kuwooda canshuurta bixiya. si kastaba Soomaalida Mareykanka ayaa su'aalo badan ka qabo qayb ahaan waxa ka soo gaari kara $2 trilyan iyo sida ay uga faa'iideysan karaan. haddaba su'aashan ayaanu hordhignay aqoonyahan Soomaaliyeed kuna takhasusay cilmiga dhaqaalaha kana soo shaqeeyay kambaniyada dhaqaalaha ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka, Maxamed Cumar. Maxamed, dhibaatooyinka ka dhashay cudurkan coronavirus-ka saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay dhaqaalaha? dhaqaalihii oo dhan ayaa hal mar istaagay. ganacsigii, safaradii, ka soo qaad diyaaradihii wadamada u kala gooshi jiray. markuu dhaqaalaha istaago waa sida qof uu wadnaha istaagay oo kale. saameynta ugu weyn uu leeyahay waxa weeye dadkii shaqaalaha ahaa shaqooyinkoodii ayay gabeen. dadkii dukaamada lahaa wax ka gadanayo dukaamadoodii ma leh. marka qof walba wuxuu ku soo aruursaday gurigiisa. dowladda Mareykanka waxa ay ansixisay sharcigaas ma inoo faahfaahin kartaa? dowladda Mareykanka waxay isku dayeysay in ay badbaadiso dhaqaalaha. si ay u badbaadisana waxay soo saartay 3 qodob oo muhiim ah oo la rabo si degdeg ah inay u gaaraan dadka loogu talagalay. midda koowaad waa ganacsatada yaryar lacag loo qoondeeyay oo la rabo in loo amaahiyo. midda labaad waxa weeye dadka Mareykanka ah shacabka in lacag degdeg ah oo $1,200 mid walba la gaarsiiyo. midda saddexaad waxa weeye waxa loo kordhiyay dadka shaqada laga saaray ilaa $600 oo federaalka ayaa loogu daray lacagihii ay ka qaadan jireen gobolada waxa loo yaqaan unemployment-ga. ganacsade Cabdimaalik Sheekh Maxamed Cusmaan oo in badan dadka Soomaalida ah kala shaqeeyo dhinacyada dhaqaalaha magaaladan Minneapolis. Cabdimaalik, lacagahan lagu kabayo dadka ganacsatada ah, lacagahaas iyo shuruudahoodaba bal inoo faahfaahi. maxamuud, waad ku mahadsan tahay. programkan ee federaalka soo saartay waxaa la yiraahdaa Paycheck Protection Program, waxayna u qoondeysay lacag dhan $350 bilyan waxaa la siinayaa lacagtaanayto ganacsatada yaryar, ganacsatada iskood u shaqaysto oo shakhsiga ah iyo non-profitka hay'adaha faa'iido doonkaan ahayn. haddaba dad badan waxay jeclaan lahaayeen inay ogaadaan lacagtan ma deynba mise waa deeq? lacagtan waa deyn. deeq waxay noqonaysaa marka uu ka soo baxo shuruudaha ay federaalka u dejisay oo ah 75% waa inay ku bixiyaan shaqaalahooda, waa inay ku bixiyaan kirada, waa inay ku bixiyaan utilitieska iyo korontada iyo wixii la gartay. marka dadka iska dhex arko inay u qalmaan lacagahan ama ay codsan karaan, sidee ay u codsan karaan? sahalkee ay ka codsan karaan? lacagahan waxaa loo codsan karaa waa inuu horta shaqaalo ilaa 500 iyo ka yar uu haysto. waxaa laga codsan karaa bangiyada waaweyn oo dhan. way u diyaariyeen foomamkii iyo howlihii looga baahnaa. shuruudo kuma xirno oo ah in qofkaasayto leeyahay garantoor waxa la yiraahdo qof kale ama gurigiisa in laga dhigayo ma u baahna. laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa inuu haystaa shaqaalahaasna deytada shaqaalaha ayaa looga baahan yahay. waa inuu shaqaalo lacag soo siin jira macnaheedu. Cabdimaalik, markii la sheegay lacagtan lagu badbaadinayo dhaqaalaha, in badan oo dadka kamida ayaa u hanqaltaagaysa siday lacagtaasi ku heli lahaayeen. ma laga yaabaa dad maanta lacagtaasi codsaday oo qaato in dib loogu soo raaco oo culays ay gadaal kaga noqoto?
sax way dhici kartaa hadduusan qofka shuruudihii loo xil saaray ama u saarnaa hadduusan ka soo bixin way ku qasbanaan doontaa in lacagaas uu soo celiyo. lacagaha la siinayo shacabka Mareykanka maxaa shuruudo ah oo looga baahan yahay? waa su'aal qaali ah. waxaa loo baahan yahay qofkii shaqeeya waa inuu xareeyo canshuurta labadii sano midkood, labadii sano lasoo dhaafay 2018 ama 2019 canshuurtii laga rabay waa inuu xareeyo. waa inuu dakhli ka badan 99,000 uusan suubinin. markuu qofka labadaa ka soo gudbo ama haddii qoys ay yihiin $150,000 wax ka yar waa inay suubiyeen. marka wax kaloo dheeriya lagama rabo. run ahaantii su-aashan waxaan u jeclaystay inaan uga hadlo waxa weeye dad badan ayaa lagu gaadayaa oo waxaa batay dad dhahaya foomkan soo buuxi ama waxaan suubi si lacagtan aa u heshid. wax kale oo u baahan tahay inaad suubisid ma jiraan ilaa canshuurtii aa xaraysay. haddii canshuurta aa xaraysay sanadkii lasoo dhaafay sanadkii ka horreeyay ama midkood ama labadood, dowladdu waxay kuu soo diraysaa adreeskaaga haysaa, waxay kuu soo diraysaa check, ama haddii aa codsatay in lacagta lagugu soo diro bangigaaga, dowladdu waxay kuu soo diraysaa lacagta 1,200 waxay kugu soo diraysaa bangiga. lacagta aa faahfaahiyo qofka waxaa loogu talagalay $1,200, qoyska waxaa la siinayaa $2,400, cunug kasto ay dhaleenna waxaa loogu darayaa $500 caruurta ka yar 17 sano. maxamed mardhow waxa aad sheegtay lacago in la siinayo dadka shaqada ay ka istaagtay oo loo yaqaano unemployment. arrintaasi bal faahfaahin dheeri ah inaga sii. unemploymentiga lacagta loo yaqaan ee qofka markuu shaqadiisii laga saaro ama uu ka tago oo si asaga aan ikhtiyaar ah uga tago, macnaheedu ay tahay sida hadda kale bangiyada meelihii badnaa ee shaqada waa la xiray, xafiisyadii waa la xiray, moolashii ama dukaamadii waa la xiray. marka qofkii howlgab ama shaqagab uu ku dhacay xilligan la joogo wuxuu lacagta ka codsan jiray gobolka uu degan yahay. Mareykanku waa 50 gobol saa u ognahay, gobolka ayaa ka codsanaysa. so hadda annaga gobolka Minnesota ayaan joognaa, waxaad ka codsanaysaa lacagta unemploymentiga gobolkaaga. Minnesota waxay bixisaa ilaa lacag gaaraysa $750. marka dowladda federaalka waa markii ugu horreysay ee lacagtaas lacag dheeri ay ku darto. $600 oo dheeri ayaa loogu daray qof kasto oo xilligan helayo lacagta unemploymentiga ah. marka wax dheeriyeen qofka inuu suubiyo loogama baahna. ugu dambeyntii kadib markii arrintani ay dhacday dad badan ayaa wareersan, waxaana jiro arrin walaahow ah oo dadku ku kuteen badan oo isdhex wadaan. maxaad kula talin lahayd dadka ku daawanaya? horta waa arrin naxdin leh, waa arrin aad dareemi karna xanuunkeeda, because cudurkan waxa ugu weyn uu keenay waxa waaye dadkii ayuu kala fogeeyey. annaga maadaama dad Soomaali aan nahay oo isjecel oo isu dhow oo isla dukada, salaadihii masaajidada hata waa la xiray. marka waxa loo baahan yahay horta sharciga loo hoggaansamo la fahmo khatarta cudurkan uu leeyahay. dhaqaaluhu wuu soo noqonayaa, waddanka waa la furfurayaa, waxani waa waqti kooban oo kaliya, dulqaad in la muujiyo. midda labaad waa saa hore uu iri, waxaa qofka looga baahan yahay in uu sugo lacagtan inay u timaado gurigiisa. maxaa yeelay dad badan ayaa kuteen iyo war isla dhexmaraya suuqa, waxay u malaynayaan in hadday wax suubiyaan ama fooman buuxbuuxiyaan ama wax dheeri qaadaan lacagta horta 1,200 ama 2,400 ka hadlaynay, wax dheeri inaad suubisid uma baahna. lacagtaas waxaa helaya oo kale dadka howlgabka ah, dadka curyaamada ah, dadka loo yaqaano dadka social security ka qaato. wax dheeri inay suubiyaan uma baahna. taas waa ku celcelinaya mar walba. waxaa yeelay dad badan baa been iyo sheeko ayaa suuqa lala dhexmaraya. midda saddexaad waxa weeye dadka lacagahan si been ku qaata. dowladdu waxay ka soo saaraysaa sharciyo adag, waxaana la rabaa in lagu qabto, sharcigaas lagu qaado. marka qof kasta oo aan xaq u lahayn lacagtaas inuu helo ha ka foojignaado inuu si degdeg ku qaato. dowladda Mareykanka hadda waxay ogtahay inuu istaagan yahay dhaqaalihi, waxay rabtaa inay dhaqaalaha socodsiiso. marka way ku dadaalaysaa sidii dhaqaalihii ku socodsiin lahayd. lacagahani waa la dirayaa, qof kasta oo codsado waa la siinayaa, way u imaanaysaa. marka waxa loo baahan yahay inaanan fudeed lagu qaadan. maxaa yeelay hadda fudeed ku qaadatid hadhow waa laga soo matajinaya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo Maxamuud Dulyadayn, dhinaca soo saarista iyo farsamadana waa Fawzi Media. inta mar kale hawada aynu ku kulmayno fi amaanillah. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.